بسم الله الرحمن الرحيم. maanta ay taariikhdu tahay 15 bisha afraad 2017 anigoo ah Maxamed Jaamac Xasan waxaan halkan idinku qaban doonaa maansada la magac baxday macalqabado oo aan kaga qayb qaadanayo silsiladda miimleyda ee uu curiyay Aboon Weersame. maansaduna waxay oranaysaa sida tan soo socota: mila baynu joognaa mugdi baa la gudayaa meelu bahal wax qaadiyo halaq micida saydhiyo mabariye joogaa danyarta iyo maatadu iyagoo madluun oo mucsur qaawan oo tuban mawlaha ku bariga hadday meelu socon lahayd musasiya xasbaa jira masaabiir la daadsho midhanaa jira marna waari mayno ilaan mawd ma baaqdee haddaan loo marmaran layn sidii loo murbixi lahaa naftu biima mari layd wax xakiim ku maqan oo la malaysta mooye raji muuqataan jir waxaa moolan muuqdiyo waxaad moodhar aragtiyo mushtarkiyo dhaqaalaha martibay ka joogaan aan laga macsuumayn mugga waxa u sii dheer in maciishadii iyo manfacii la cuni lahaa iyadoon la moogayn ninba maalin kororsada inkastay ka muuqdaan muuqbaahiyaa iyo maktabkiiyo xafiisyada cabashana miciintaan mas-uulkay dirteen iyo hadday maamul guu tahay ciddanaysa may arag waxay gola masruufaan quusna way u muuqdaan inta meel u dhooftay hadba loo mashxaradiya maaha tay bilaashlaha ka mushtara dadweynaha malahay madaarada ma arkeenba mooyaan mansab loo majeertiyo mar haddaanay maal hayn ma galaan xafiisyada sharciga iyo maxkamadaha milga muuqda kuma laha xuquuqdoodu waa ma leh hadba kii xidhaan mudan oo loo maslaxayaa maxastiyo dulmanihii mahmaahda guunkiyo siday tidhi murtida hore miska waxaa la fuulale Weersame oo miskiinkaoo malaha waxay u haystaan maanlaawayaashani in maxkamadda mawluhu ka mastuuran doonto xaqu midigta siin karin masaakiinta goolmoon maanse waxaad u fahantaa dulmikii macmiishow marka daaha laga rogo ismakeekigaagiyo muruqsheegadkaagiyo anigaa mudnaa iyo midig laysu duubiyo midna kuma baxayside bal carmaanka weydii maxaa kaaga meel yaal midna aan bayaanshe cabdilaahi maansada markaad marag furtee tidhi Weersame ma gees marin mililka iyo boogaha aadna jeexday maalaha maxaa hebel la soo baxay unkod may ku soo kacay inta maalka boobta mala weyna moogtee maxalqabadadii iyo malaayiin dilaal iyo dar muraad hungurilo murtidii iyo midhaha gabay magacii ka biiyo ku maxaabsanayaan baa sida daf soo yidhi iyagoo ismuujale waxay madal dhawaaqeen miirqaba ha joogeen waxaa ruux majunuuniyo ma yadhaan dhegaysteen bal inay maldahan yihiin waxay been markhaatiye iyo maragu raadshaan musuq maasuq baahiyo maal lagu danaystiyo dayacmeella kama dhici waxse marag ma doonto ah midna laga su'aalayn inay maalin iyo leel duul meheradoo tahay anna waxaanan moogayn inkastoon ku maydawo ama maayad soo furo ma marayso waanoo qofu maanku xidhan yahay micnuhu ma dhacaayee waxba yaan magaabine waxaan miimka kaga hadhay muran iyo maxaa jira masir laguma daahee midhay xeerka gees maray mijin laguma raadshee waxaan maanka ka lahayn dadka laba mar siiye dayaxoo mur soo yidhi marna saca ma qariye mas-uul gabe xilkiisii nin ammaan ku miisaa magac kuma helaaye midabaynta laga wacan shilin maamulaaye maandhow xaalka maantadu maaweela maahee maadays nin moodow tolakaa murgacatee mugdi ruuxuu haysto maalin weeye goortee ninka madaxu muuqdo muska ha isku waabin adigoo muraadalaha iska dhigin muruudkii qof maslaxad u gaara leh dulmi kama mayiigee kuma mooga uunkuye horta ma ismaqlaysaa mise dhagaha madaxaan maskaxda u daloolayn midna idin su'aalayay mudisiya dirkeedow maxaqaad ka dadantihin mahankaad ka mudantihin ma hurdaad ka toosteen miimkaa su'aasha leh anigoo mildhaaweyn waxaan uga muraad digay وتتولك موقضيو معناها دايسان انت موجود على الدبا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.